dowladda Soomaaliya ay sheegtay in maxkamad soo taagi doonto saraakiil ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda oo dhawaan la qabtay kuwaasi oo lala xiriiriyay qaraxyadii ka dhacay hoteelka SYL ee magaalada Muqdisho bishii Janaayo sanadkan. Ku-xigeenka xiriiryaha guud Axmed Cali Abuukar ayaa shir jaraa'id oo maanta qabtay waxa uu ku sheegay in la xidhay 11 qof oo kiisaskan lala xiriirinayo. haddaba tallaabooyinka dhinaca amniga ee dawladdu qaaday isbedel ma ka dhalinayaan magaalada Muqdisho. khadka telefoonka ee Soomaaliya ayaa waxaan kula xiriiray Cabdullaahi Aadan Xuseen oo falanqeeya arrimaha amniga. guud ahaan xilliga kan amniga Soomaaliya marka la fiiriyo waxay u muuqataa marka la fiiriyo inta isku go'nayd marxaladda shabaabnimada ee khatarta ay ka jirtay in dawladdu horumar fiican ay ka gaadhay. marka runtii waa arrin fiican oo inta looga sii dhawaado u baahan. waan gartay haddaynu gaar ahaan magaalada Muqdisho si hoose usii eegno, haddiiba sidaad sheegtay al-shabaab meelihii kale lagaga taal roonaaday, waxaa muuqata in ay ururka culayska saaray magaalada Muqdisho oo xilliyadii dambe qaraxiya ka dhacay. magaalada Muqdisho gaar ahaan maxaad ku qiimeyn lahayd amnigeeda xilligan la joogo? xaqiiqiyan Muqdisho waa magaalo ballaaran oo xaruntii Soomaaliya. waxaa ku dhacay jahwareer ama burbur ama maamulkeeda muddo 20 sano ku dhawaada ayuu ahaa mid aan gacan ku jirin oo kala qaybsanaana. qiyaastana waa la qiyaasahayaa inta ay hadda hal gacan ku jirto. magaalo lagu nadiifin karo maalin ama laba ma qaba inay tahay, laakiin sida hadda muuqataa runtii hay-adaha amnigu way dadaaleen. dhibaatada haysataa marka waxa weeye ciidankii amniga hanan lahaa inta ay tira iyo tayo ahaan u baahnayd magaalada Muqdisho ayaan lahayn, marka in iyo qalab ahaanba. marka waxaa dadka arrimaha amniga aqoonta u leh way dareemahayaan dhibaatada meesha ay ka jirto. marka ciidan ahaan ama dadka shacabka ama aan arrinta aqoonta u lahayn markay wax ka dhacaan markiiba cilada waxay saarayaan ciidanku wuxuu rabaa kow in aqoonta laga dhiso, shakhsiyaadka loo xulahayo laftigooda xulasho dhabal la sameeyo, la qalabeeyo, deegaanada iyo baraha ay ka howlgelahayaan sidoo kale ay yihiin deegaano dhisan ama xerooyinkoodii ay diyaarsan yihiin. marka dhibaatooyin badan baa jira. daryeelka ciidanku ay heli karaan, awoodda dawladdu ay ku cover garayn karto, intaba dhibaatooyin baa ka jira. marka way jiraysaa dhibaato ama culays ugu jirahayaa ciidanka, laakiin hadda inta ay sameeyeen waxaan u arkaa anigu shakhsiyan inay dadaaleen. waan gartay haddaynu eegno dadaaladii ugu dambeeyey hay-adaha nabad sugidda ee dawladda federaalku ay sameeyeen ahayd in lasoo qabqabtay xitaa mas-uuliyiin xilka hayay qaar ka mida degmooyinka gobolka Banaadir. adoo arrintaa eegaya, dadweynaha ku nool gaar ahaan magaalada Muqdisho ma dareemayaan in amnigoodii uu ka wanaagsanaaday sidii hore, mise waxa la fili karaa in daqiiqad kasta waxyaabihii hore uga dhacay ay ka dhici karaan? arrintaas waa su-aal fiican. bulshada deegaanada gaar ahaan gobolka Banaadir ku nool xaqiiqiyan waxaa la taaban karaa wax la taaban karo ayay ka gaareen amniga oo ay haystaan haddii aan lagu jizaarin. waxaase marka waxyaalaha la dareemahayo mas-uuliyad qofku hadduu qabto waa lala xisaabtamahaya. marka xisaabtankuna wuxuu noqonahayaa mid lagu abaalmariyo hadduu horumar gaaro. haddii uu dib u dhac ama cillado farsamo shakhsiyadeed oo mas-uuliyadda taabanahaya uu la yimaadana hadda wuu helahaya. marka wax necessarya maaha dawlad waajibkeedii gudanaysa oo dadna abaal marinaysa, dadna xilal ka qaadaysa, dadna sharciga horgeynaysa. aniga ama dadku ma ahan yani arrin problema. arrintaas waa shaqadii joogtada ahayd ee laga rabay maamul inuu sameeyo. marka sarkaalka iyo askariga iyo shacabka intaba way saameynaysaa.
marka haddii xilgudasho waa xumo timaado waxa weeye waa sidaas la yeelay bay ku habboon tahay si dadka dambe ay ugu tusaale qaataan oo xilalkaas soo doonanayo ama loo xulanayo.